mucaawanada isdabajooga ah ee baryahan dowladda Imaaraadka Carabta ay ku soo daabulayso gudaha dalka Soomaaliya waxa ay ka dhigan tahay saaxiibtinimo iyo walaaltinimo dhaba oo ay u muujinayso Soomaaliya ama wadana siyaasadeed oo ay boos ka doonayso inay kaga saarto dowladda Qatar oo 5 sano ee la soo dhaafay saaxiibtinimo weyn u muujisay Soomaaliya kahor warbixintan intaanay guda galin oo aan arinkan ku eegi doono daawada waxaanu ka codsanaynaa si xishmad ay ku jirto in aad saaxiib halkan nagula noqoto oo aad leeg iyo follow soo tiraado page-keena Sahan soo soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee dalka mahadsanidin dowladda Imaaraadka Carabta waxa ay mar kale magaalada Muqdisho ka soo dejisay gargaar mucaawino ah oo qaybo kala gedisan ka kooban kana badan kii hore oo toddobaadii ka hor ka soo dejisay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waa qaybtii labaad oo ay kanta Muqdisho maalmo yar un kadib markii uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya booqasho uu ku tagay magaalada Dubai ee xarunta isu taga Imaaraadka Carabta halkaas oo heshiisyo ay ku soo kala seexdeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowladda Imaaraadka Carabta xiriirka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta oo hakad ku jiray dhowrkii sano ee la soo dhaafay laga soo bilaabo sanadii 2018 ilaa iyo xiligan marka laga reebo muddada toddobaadyada ah ee uu la heshiiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa booskaasi horay ugu jiray dowladda Qatar waxa hakaday dhammaan shaqooyinkii uu Imaaraadka ka waday gudaha dalka Soomaaliya haddii ay tahay midda dhaqaale midda gargaarka bini'aadanimo iyo taageeradii xagga ciidanka siyaasad ahaan isfahamkii dhanka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta siyaasadda uu dalka ku hogaaminayay 5 sano ee la soo dhaafay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Imaaraadka iyo wadamo kale oo Kenya ay ka mid tahay waxa loo diiwaan geliyay liiska madow iyo dalalka cadowga ama qatarta ku ah xasiloonida Soomaaliya fashilkii weynaa ee ku dhacay Imaaraadka Carabta ama ku habsaday ayaa soo bilowday bishii Abriil sanadii 2018 markii loogaga qabtay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho lacag ka badan 9 milyan oo dollar kuna dhow 10 milyan oo Imaaraadka waqtiga uu sheegay inuu ugu talagalay ciidanka mushaaraadkooda waa ciidankii ku xariisnaa xerada General Gordon ee Imaaraadka uu gacanta ku hayay balse dowladda federaalka Soomaaliya oo waqtiga u cuntami weyday jawaabtii Imaaraadka ayaa ka ceerisay gudaha magaalada Muqdisho waxaana uu Imaaraadka wajahay fadeexado iyo dhaleecimo waaweyn oo kaga yimid dhanka caalamka maadaama loogaga qabtay lacag sifa sharci darro ah uu gudaha dalka ku soo galiyay darbaxshada kale ee waqtigaasi ku dhacday Imaaraadka Carabtu waxa ay ahayd Soomaaliya oo ka soo kabanaysa burbur oo dowlad sidaas u awood badan aanay ka dhisneen in fal dambi ay ku soo oogtay oo lacag sharci darro ah ay ka qabatay maadaama Imaaraadka Carabta uu isbedayay inuu ka mid yahay dowladaha caalamka kuwooda ugu quwadda weyn xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda marka la eego si gaar ah dalalka khaliijka xiligan Imaaraadka Carabta waxa uu bilaabatay waji cusub oo siyaasadeed oo waxa uu iska dhaqayaa boogihii iyo sidoo kale hareeyay ka soo gaaray darbaxshooyinkii kulula oo ay ku dhafatay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya halka ay fursad kale u noqotay markii uu dhawaan gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen Roble ka dhax sheegay inuu Imaaraadka ka raali gelinayo lacagtii loogaga qabtay gudaha garoonka balse Roble dadka qaarkii waxay ku tilmaamayaan mid ceebeeyay nidaamka dawliga ee Soomaaliya warkii aad kala socoteen Sahan waa inaga inta hadii gorala ku xirnaada sahanka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay page-ka laga noo saara follow soo dhaha nabadgelyo.